بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وسعدي اسماء علي وسودو جنركي سعدي ست صوب. ما أنت نحيد وذا صابون سيدا أو قدرت لشيدو لقلجية بودر كلا رهان لو استعماله. ما أنت حسمين دونا صابون لجها جي بيتروت أما بيتراف كبار كله أو بودر إن كلر معانا سينا wuxuuna ku darayaa isheeg qiimo aad u sareeyo oo xagga beauty-ga ku kordhin doona saabuunta marka daawasho wacan halkan waxaan ku haystaa saliid olyoliiba ah olyoliibada way noocyo badan tahay bomas mid la dhahaa jirto extra virgin waa bomas midaan haysto waxaan kaloo isku soo daray 25 gram oo sodium hydroxide ah iyo 57 gram oo biyo ah isku soo daray marka si video noogu dheeraanin waa soo habeeyay insha Allah waxaan rabaa inaan aan sameeyno meeshaan waxaan ku haystaa beetroot powder beetroot ama biyatraafka waa qudaar aad u nafaqo badan dadka isticmaalaan raashinka loo isticmaalaa in la cuno cosmetic-gana waa lagu daraa creamska waa lagu daraa extractigeeda waxaa kaloo lagu daraa saabuunada powderkeeda waa loo isticmaalaa saliidiisa waa la isticmaalaa waxyaabo badan laga hagaajiyaa marka waxaan rabnaa in colorna uu siiyo saabuun aad u fiican uu ka dhigo saliideeda waa 200 gram sodium hydroxide waa 25 gram biyaha waa 50 gram oo isku soo qasay marka waa kaasa marka waa yara shiidayaa si fiican ugu dhex galo daarta ku badan kartaa daarta ku yareen kartaa kalar macaan oo xusiina oo pinki oo dhaag camal oo pinki aad ugu badan yahay markaas dhaag kala si fiican u dhex galay waxaan ku shubayaa كوستيجي iyo biyo diyaarsan biyahan marka isticmaalaysid gloves ina qaadatid gaagalis indhahaada ilaalisatid maxay gacmaha ka ilaalisid waxa waa iyadana wax aad u haboon waayo meesha ka soo gaaro ka gubaya si fiican isku dhex geli ku shiid beetroot-ka ugu yaraado ugu badsan kartaa laakiin aniga hadda kalarkeena ma sha Allah waxaan ku shubayaa moodiska beetroot-ka skinka aad ugu fiican yahay vitamin C-ga ku badan skinka aad u qurxiyaa nabraha ugu fiican yahay haaraha ugu fiican yahay timaha xitaa waa la marsadaa bowdharkiisa marka waa kaas insha Allah waxaan sugeynaa 24 saacadood kadib moodiskan ka saareena oo fiirineena sidee noqoto marka 24 saacadood kadib ama hal maalin way qalashay fiirineena insha Allah saabuunta beetroot-ka aad ay skinka ugu fiican tahay way qurxisaa anti-aging ay leedahay ma sha Allah fiirina istaan gareynayna
markaan fiirinayna si u xumbeynayso si u shaqeynayso insha Allah. صابون آد في عواين إن شاء الله وحنستعمل دونا قدرت الشيء أو بودر كده إذا باباي بردو قجار ما أنت بتقول ده هجاجنا إن شاء الله حياة صلهم وسوي كده دونا تذكروا فائدستان هكذا صابون آد في بيننا ساكي ماده صابونته waxay u baahan tahay 4 week ama hal bil inay qalasho ay banaanka taalo si loo isticmaalo. Si share gareeya asxaabtiina la wadaaga insha Allah. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.